Maxaad ka taqaanaa ninka xasuuqay shacabka reer Suudaan colaadaha ka socda dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Darfur ninkan oo lagu magacaabo Cabdilfataax Cabdalla Idriis oo ku magac dheer Abu Lu'lu ayaa ka soo muuqday shaashadaha isagoo xasuuqaya dad fara badan. Waxaa isa soo taraya muuqaallo iyo warbixino naxdin leh oo ka imaanaya magaalada El Fasher ee waqooyiga gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Muuqaaladaas ayaa muujinaya askar ka tirsan ciidanka RSF oo si bareer ah u dilaya dad rayid ah. Mid ka mid ah magacyada ugu hadalhaynta badan waa sarkaal lagu magacaabo Abu Lu'lu, magaciisa dhabta ahna uu yahay Cabdilfataax Cabdalla Idriis. Abu Lu'lu waa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Rapid Support Forces oo loo soo gaabiyo RSF, kuwaasoo tan iyo sanadkii 2023 dagaal kula jira ciidanka dowladda Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdilfataax al-Burhaan. Waxaa lagu eedeeyay in uu hogaaminayo weeraro iyo xasuuqyo ka dhacay gobolka Darfur, gaar ahaan magaalada El Fasher, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay boqolaal kalena lagu dhaawacay. Fiidiyowyada lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya Abu Lu'lu oo si toos ah u tooganaya dad fara badan, dilwadareedna ka geysanaya, isagoo amraya in rasaas lagu furo dad la qabtay. Wararka qaar ayaa sheegayaan in uu ku faanay, isagoo sheegay inuu dilay in ka badan 2,000 oo qof. Maalmihii la soo dhaafay ayaa dad fara badan lagu xasuuqay gobolka Darfur oo gaaraya in ka badan 1,500 oo qofood. Inkastoo tiradaas aan si madax bannaan loo xaqiijin, haddana hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kooxaha maxalliga ah waxay tilmaameen in dilkaas ay ahaayeen kuwo si nidaamsan loo qorsheeyay, isla markaana lagu beegsanayay qowmiyadaha aan Carabta ahayn sida Zaghawa, Fur iyo Berti. El Fasher ayaa muddo bil ah ku jirtay go'doon adag. Dadka rayidka ah waxay la dhiban yihiin gaajo, biyo la'aan, daryeel caafimaad la'aan iyo gebi ahaanba go'doon. Kooxda RSF oo uu Abu Lu'lu ka mid yahay ayaa lagu eedeeyay inay weerar ku qaadeen xeryaha barakacayaasha, isbitaalada, taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah. Warbixino ka yimid jaamacadda Yale iyo hay'adda sida Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in muuqaalada dayax-gacmeedka ay muujinayaan guryo la gubay iyo dad lagu aasay meel wadareed. Hay'adaha Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa hadda dalbanaya in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo lagu ogaanayo cidda mas'uulka ka ah xasuuqa ka socda gobolka Darfur. Si kastaba, ilaa iyo hadda Abu Lu'lu laguma soo oogin dambi rasmi ah, mana jirto maxkamad caalami ah oo dacwadiisa bilowday. Inkastoo wejigiisa la gartay, sawiradiisana lagu soo gudbiyay baraha bulshada, inkastoo isaguba uu soo duubay muuqaallo isagoo xasuuqaya dad shacab ah. Warbaahinta caalamka ayaa sheegaysa inuu weli ku sugan yahay waqooyiga gobolka Darfur, halkaas oo uu weli ku maamulo ciidamada RSF. Xaaladaha El Fasher ayaa loo arkaa mid ka mid ah masiibooyinka ugu waaweyn ee bani'aadanimo ee ka socda dunida maanta. Magaca Abu Lu'lu wuxuu hadda astaan u noqday cadaawadda, cabsida iyo ciqaab ka dhan ah shacabka rayidka ah ee reer Suudaan. Dadka deegaanka waxa ay dalbanayaan cadaalad, halka dunida ay isweydiinayso goorma ayay cadaalad dhab ah u imaan doonto dadka Darfur lagu xasuuqay. Suudaan ayaa u muuqata mid cagta saartay waddadii Soomaaliya qaaday sanadii 1991, waxaana filayaa inay kasoo bixi doonaan dhibkaas. Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay u duceeyaan dadka reer Suudaan. La soco muuqaalka xiga daawada oo nagu soo biir. أنا عارف كل ما